عاويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararka waxa ugu waaweyn Kuuriyada Waqooyi ayaa Mareykanka u sheegaysa inay mar walba wada hadal diyaar u tahay kadib markii madaxweyne Trump joojiyay kulan madaxeedkii bisha dambe loo ballansanaa maxay dadka Suuriyiintu dib ugu tahriibayaan dalkoodii oo ay Yurub uga tagayaan koox BBC da ayaa raacday nin Suuriyaana oo jidkii dib u qaaday caawa iyo barnaamijka tiknoolajiyada ee Clickna waxaanu idinku haynaa inagoo in adduunka 170% ay biyo tahay ayaa laba dayax gacmeed biyahaasi miisaankooda eegayaan madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay inuu ka baxay kulan madaxeedkii dhexmari lahaa isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un isagoo la hadlaya saxafiyiinta kadib markii uu si kadisa shirkaasi uga baxay qorsheysna ayaa Mr Trump uu sheegay inuu jecel yahay in shirkaasi dhaco waa xaalad hadaba aad isu badbedelaysa waxa la socday Farxaan Maxamed Jimcaale 3 2 1 blast waa xilli ay Kuuriyada Waqooyi burburisay goobta kaliya ee la og yahay ee nuclearkeeda ay ku tijaabin jirtay waxay ahayd tilmaan cad oo muujinaysa in ay daacad ka tahay la kulanka madaxweynaha Mareykanka wariyaal la soo xulay ayaa lagu tusay tanallo iyo xogag ay dawladdu ka tijaabiso hubka nuclearka hase yeeshee uuradiiba ma degin markii uu Donald Trump go'aansaday in uu joojiyo kulanka labada dal qaar ka mid ah dadka Kuuriyada Koonfureed ayaa cishan waayay caradooda waxaana ay dareemayaan in rajadoodii nabadda ay sii luntay war-saxaafadeed ay soo saartay dawladda Pyongyang ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid heer sarreeya go'aanka gaarka ah ee lagu joojiyay kulanku wuxuu ahaa mid lama filaan ah aad ayaan uga xunnahay ayaa lagu yidhi qaramada midoobay ayaa ku boorisay labada dhinac inay helaan qaab ay ku kulmaan waxaan ku boorinayaa dhinacyada in ay sii wadaan wada hadalkooda si ay u helaan wadada nabadda iyo nuclear-ka dhimista gacanka Kuuriya xuduudda u dhaxaysa labada Kuuriya halkaasi oo ay dadku is arki karaan balse aanay isku gudbi karin kulankani wax weyn ayuu uga dhignaa waxa ku dhammaan lahaa khilaaf 70 sano jiray waqtigan xaadirka ah Kuuriyada Waqooyi waa ay isfurfurtay waxay burburisay goobo nuclearka lagu tijaabiyo laakiin madaxweyne Trump si lama filaan ah ayuu isku bedelay ma hubo waxa uu ku fakiray waxa ay la tahay waqooyiga Kuuriya waa inay isbedel u keentaa dadkeeda hadallada iyo wararka xanafta leh ee aanan ixtiraamaynin dhinaca kale waa qalad waxa ay la tahay Trump iyo waqooyiga Kuuriya inay ugu dambeyntii ay kulmi doonaan dib u dhac yar ayaa ku yimid diblomaasiyadda u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo dalalka reer galbeedka ma ahayn mid fudud tobannaankii sano ee ugu dambeeyay laakiin dhowrkii cishe ugu dambeeyay xaalku waxa uu ahaa mid mar walba isbedbedelaya faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga toddobaad kasta boqolaal Suuriyaan ah oo magangelyo laga siiyay dalka Jarmalka ayaa dib ugu noqda dalkoodii hooyo marar badan waxay galaanba xabsi iyagoo doonaya inay si dhuumaalaysi ah ku galaan dalka Turkiga inta aanay gaadhin Suuriya BBC da ayaa raacday qaar ka mid ah dadkan oo weydiisay sababta ku kaliftay inay nabadda Yurub taala dib uga hayaamaan oo ay ku noqdaan wadankoodii colaaduhu ku habsadeen Maxamed Xaraare ayaa inoo haya halkani waa xuduudda dalka Greega balayska ayaa xirxiraya 10 Siiriyaan ah dadkan qaxootiga ahi maaha kuwa laga celinayo inay gudaha u galaan Yurub ee waa kuwa doonaya inay isaga hayaamaan oo ka tagaan koox BBC da ka tirsan ayaa raacday nin Siiriyaan ah oo lagu magacaabo Zakariya oo ka ambabaxay magaalada Württemberg ee Jarmalka
dalkan waxaan imi 2 sannadood ka hor anigoo qaxoontiya waxaan rabay inaan nolosheeda dhiso oo aan gaadho ujeeddooyinkayga oo aan jarmalkana tuso inaanan ahayn qof qaxoontiyuna laakiinse halkan wax isdhexgeli ma jiraan waxaan isku daynay inaannu dadka la macaamilo laakiinse kun laguma soo dhowaynayo oo si qabow ayaa lagu salaamayaa taasina waxay keentay inaan iminka dib ugu tahriibo oo aan ku noqdo suuriya oo aan jidkii aan ka soo tahriibay dib u maro maalin dabadeed zakariya waxa uu gaaray magaalada tesaloniki ee dalka gariiga aad baan u faraxsanahay waxaanan rabaa inaan ku noqdo dalkaygii socdaalku wuxuu ahaa safarkaygu wuxuu ahaa mid dhib badan qabow iyo roob baa sidaa noogu da'ayay boosteejadan basasku waa goob ay isugu yimaadaan dadka suuriyaanka ah ee zakariya la midka ah waxaa halkan ku sugan in ka badan 50 suuriyaan ah oo dib u noqonaya mid waliba dan gaar ah ayaa celinaysa 3 maalin dabadeed waxa ay gaareen xadka gariiga ee turkiga halkan ayay ka bilaabayaan safar lug ah oo ay si sharci darro ah ugu galayaan dalka turkiga aad ayaa loo cabsanayaa qaar ka mida dadkani hore ayaa loogu xirxiray halkan zakariya ayaa fariintiisii ugu dambaysay u diraya dad horey u martigeliyey way igu adag tahay inaan dal kale oo yuruba ku noqdo ama jarmalkaba waayo annagu muslim baanu nahay laakiin iyagu waxayna yidhahdaan waxaad tihiin argagixiso waxay kuu eegayaan sidii ay kaa cabsanayaan oo kaa baqayaan oo kale sidii aad tahay horar wax cunaya oo aan bani aadan baahayn si nabdoon oo xasilan ayay dhammaan tahriibayaashani ku galeen xadka turkiga zakariya weli kuma noqon dalkiisii hooye ee suuriya iminka waxa uu la shaqeeyaa walaalkii oo ku sugan koonfurta turkiga bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta bam gaadhi lagu soo xidhay ayaa ku qarxay magaalada bangaasi ee dalka liibiya waxaana uu halkaasi ku dhintay 7 qof iyadoo 20 in ka badanna ay ku dhaawacmeen bamka ayaa ku qarxay meel u dhow hoteelka magaalada ugu weyn oo isla markaana ah meel dad badan ay rabadaantii ku afuraan oo ay isugu yimaadaan bangaasi waa magaalada labaad ee liibiya waxaana xukuma ciidanka qaranka liibiya kooxda la idhaah oo ka soo horjeeda dowladda UN to aqoonsan tahay ee Tripoli booliska Malaysia ayaa sheegay inay qabteen lacag gaadhaysa 29 milyan oo dollar oo ka kooban 26 cumlo oo kala duwan lacagahaasi ayaa laga helay guryo lala xidhiirinayo ra'iisul wasaarihii hore Najib Razak 3 cisho ayaa lacagtaasi lagu tirinayay mishiinada xisaabta ee baananka baadhitaan ayaa ku socda Mr Najib ku saabsan hay'adda maalgelinta dowladda Malaysia ninkii sharaf dhacay ee soo saaraha filmada Hollywood Harvey Weinstein ayaa booliska isu dhiibay New York waxaana loo haystaa dacwadaha kufsi iyo faraxumayn laakiin Mr Weinstein waxa uu leeyahay weligayba ciidan iyo ogolayn umaan galmoon eedeymo badan ayaa istul tuulmay oo lagu eedeynayo maalqabeenkan filmada taasi oo horseeday in la bilaabo ololaha Me Too oo rag kalena lagu eedeeyey waxaynu maqalnaa dhibaatada ay sababaan marka dawooyinka xumadda jabiya si xad daaf ah loo isticmaalo dalka Mareykanka laakiin waxaa jira dhibaato ka sii ballaaran taasi oo caalamka oo dhan haysata taasi oo ah inaanay jirin xanuun baabi'iyo waxtar leh dalalka soo koraya markaad eegto taasna micnaheedu waxa weeye in 10 milyan oo qof ay ku nool yihiin ama u dhintaanba xanuun si fudud lagaga hortagi lahaa xaraarug awgii benedict alexander ma dhaqaaqi karo kansar ayaa ku faafay jirkiisa waxaan ahaa nin dhintoo kale ma fariisan karin oo ma seexan karin socodna warkiida madaxa xitaa ma leexin karin anfariir ayaan ku sugnaa kama sheekayn karo sida ay wax ahaayeen isagoo oo keliya ma ahan 60 milyan oo qof ayaa sanad walba uu soo wajahaa cudurkan laga hortagi karo benedict waa uu roonaaday markii halkan uu yimid pallium waa xarun caafimaad oo u ololaysa in la bedelo dhaqanka xanuun baabi'iyaha ee indiya waxaa la siiyey xanuun baabi'iyaha awoodda badan ee opiad waana uu shaqeeyey maalinkii koowaad ee aan halkan nimid ma ogi sababta laakiin si fiican ayuu u hurday sidaas uma uusan hurdin 6 bilood laakiin markan halkan nimaanay wuu hurday habeen kastana waa uu hurdaa arrintu 10 sano ayay soo taagnayd si loo xadido opiads sababtoo ah waa laga cabsi qabay
cabsidaasina waxaa sii adkeeyey sida daran ee daawadani maanta looga isticmaalo maraykanka. marka aad cabsato maangal ma tihid sababtoo ah waxaa jirta baqdin ah inaad qabatanto cid walbana way haysataa xaaladani. gobolka Kerala ee India ayaa doonaya inuu tusaale u noqdo sida xanuunka loo maarayn karo iyadoo la isticmaalayo daawada opioid oo ka duwan sida khaldan ee maraykanku u isticmaalaan. waxaa jira tusaalooyin ka jira UK ama Faransiiska ama Jarmalkaba oo ay suurtagal tahay in si dheelitiran oo wanaagsan loo helo dawadan. xitaa halkan Kerala waxa ay dhacaysaa in dawadan dadka la siin karayo oo la heri karayo iyadoo xadidan lagana hortago si aan si xun loogu isticmaalin. su'aashu ma ahan qarashka ee daawadan inteeda badan waa raqiis. arrinta dhabtaana waxa ay tahay in loo qaato si qaanuuni ah. waxa kale oo muhiima in la fahmo inay tahay daawo wax ku ool u ah yaraynta xanuunka. caawiyo ciyaarahana waxay noqon doontaaba la leeyahay cartankii xoogweynayaasha Yurub. waa finalka koobka horyaalada Yurub ee Real Madrid iyo Liverpool iyadoo ciyaarta berri loo diyaar garoobayo ayaa caasimadda Kiev ee Ukraine waxaa soo gaadhay taageerayaasha labada kooxood. reer Liverpool ayaa ku faanayo leh 5 jeer ayaanu koobkaasi qaadnay Yurub ee horyaalada, laakiin kooxda Spain Real Madrid ayaa iyagu waxay leeyihiin bal ka warrama kuwa qaaday iyagu 12 jeer. soonkii ciyaaraha ayaa iyaguna gacmaha isqabsaday. waa arrin ay la baaxaadegayaan ciyaartooyga Masar ee u diyaar garoobaya koobka adduunka. kabtanka kooxda Masar ayaa sheegay inay kooxdu kulmi doonto maalmaha soo socda inay Soomaaliya in kala bisha barakaysan ee muslimiinta Ramadaan ayaana laga wada hadlayaa. waxay kooxdan 7 jeer koobka Afrika qaaday. ciyaaro saaxiibtinimo la yeelan doonta maalmaha soo socda Kuwait, Colombia iyo Belgiumka. caawana waa caawadii tiknoolajiyada. Axmed Xaaji Xasan ayaa inoo diyaariyey. isbuucan Maraykanka iyo Jarmalka waxa ay bilaabeen howlgal lagu cabirayo biyaha dhulka ku jiro iyo kuwa dul saaran. marka la ogaado labada dayax gacmeed waxa ay eegayaan kala duwanaanta cufka. saynis yahanada ayaa taasi ku ogaanayo sida barafka uu u samaysmo. howlgal hore ayaa muujiyey degdega uu u sii dhammaanayo barafka Greenland iyo cirifka dunida. Amazon ayaa difaacday tiknoolajiyadda garashada wejiyada kadib markii ururada xuquuqda rayidka ee Maraykanka ay sheegeen in software-ka shirkadda uu u shaqaynayo sida dabagalka maamulada. in ka badan 40 urur ayaa shirkadda warqad ugu sheegay in qalabkan uu yahay mid xadgudub ah. Amazon ayaa software-ka ku tilmaamtay ka hortagga dembiyada, garashada dadka caanka ah iyo badqabka bulshada. Facebook ayaa macaamiisheeda Britain weydiisanayso inay u diraan sawirro cawradu muuqato si looga hortago sawirrada qawnida ah ee qofka kale ee la baahiyo. waxaa loogu talagalay dadka ka baqaya in sawirkooda oo aan fiicnayn ay dad kale baahiyaan oo baraha bulshada la geliyo. sawirrada loo diro Facebook ayaa loo adeegsan doonaa in laga hortago muuqaalada kale oo la joojin doono ka hor inta aysan barta ku baahin. markanna ma u malaynaysaa in bootintanna ay hal shaqo u badbaadisay kacaanka robodka? mar kale u fakar sida machadka cilmi-baarista ee Disney uu muujiyey. ninka usha waa robot hawada isku rogrogi kara. waxa uu isticmaalayaa dareemo, cabbirka masaafada iyo aragti kombiyuutar ah si hab aan caadi ahayn uu ugu caga dhigto. waa qaab aad u wanaagsan. gabagabadiina maxaad yeeli lahayd haddii cashadii aad u soo xaydxaydateed u soo diyaar garowday inta lagaa boobo weliba hawadaas sare lagula baxo? haahey dacwadan ayaa bakeyle qabsatay dabeetana meel bay raadisay ay ku cunto ayay islahayd. dabeeta wacdanaaba ku dhacay oo iyadii ayaa hawada loola baxay. waxaa la yidhi waxaan laguu qorin. San Juan gobolka Washington ayay ka dhacday. wararkan iyo kuwii ugu dambeeyey waxaad kala socon kartaa oo aad ka helaysaa bogga bbcsomali.com. barnaamijkeen intaasu ku dhan yahay hadduu eebaydmo intaan isniinta kulmayno nabadgelyo.